dhacdo la yaab leh ayaa waxa ay ka dhacday ismaamulka Wajeer iyadoo wiilkan idin muuqda ay si weyn geeridiisa ay ugu naxeen dadka ku sugan ismaamulka Wajeer. Wiilkan ayaa saacadii ugu dambeeyay soo gaartay geeridiisa iyadoona la sheegay in dilkiisa ay ka dambeysay haweeney eedadiisa kadib markii madaxa musbaar ay ugu dhufatay. Wiilkan ayaa waxaa la sheegay in haweeneyda eedadiisa uu ka cunay xabad ukun ah kadib markii ay maqashay in uu ukunta ka cunay waxa ay sameysay sida aan xogta ku helnay in madaxa musbaar ay ugu kawiso. Waa dhacdo ugub ku ah gudaha Soomaaliya iyadoona wiilkan si weyn ay u qabsatay geeridiisa ismaamulka Wajeer. Dhacdadan ayaa soo gaartay hadda iyadoona wiilkan la sheegay in haweeneydan ay u ahayd eedo muddo dheer bal markaa ay kuriimadiisa haysay. Ugu dambeyn waxaa la sheegay in xabad ukun uu ka cunay darteed ugu dishay sidoo kalena madaxa ay musbaar ugu kawisay. Gudaha ismaamulka Wajeer ayaa laga hadlayaa dhacdada wiilkan oo bal markaa wiil da'diisa aad u yar tahay.